channelkayga Canab waxaad ku soo dhawaataan wararka ciyaaraha kuwoodii ugu doorka roon. Man United oo ku guuleysatay horyaalka Premier League qaab sidee ah rasmi. Liverpool oo xaqiijisay in uu Jadon Lovren ka tagay kooxda, sida uu horyaalka Premier League ku dhamaan lahaa haddii aan VAR la isticmaalin xilli ciyaareedka oo la soo saaray. degdeg Borussia Dortmund oo ka jawaabtay dalabkii ugu horeeyay ee ay Man United ka gudbisay Jadon Sancho. Xidigii hore ee Man United Chris Kroos oo doortay shaxdiisii ugu fiican Premier League xilli ciyaareedka dhamaaday. Oblak, Messi, Torreira, Kepa, Aubameyang wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ayaa iyagana ka mid ah wararkayga. David Luiz oo rikoodh xun ka dhigay horyaalka Premier League. Chelsea oo dardar gelinaysa baacsiga ay uga jirto Kai Havertz kadib markii uu u soo baxay Champions League. Lampard, Solskjaer, Roy Keane oo ka shafay midkooda shaqo fiican qabtay xilli ciyaareedkan. Mustaqbalka Pogba oo go'aan ka gaadhay mustaqbalkiisa kadib soo bixistii Champions League. Gary Neville oo Man United u sheegay lacagta ay tahay inay suuqa geliso si ay ula tartanto Liverpool iyo Man City. Juventus oo guuldarro lama filaan ah kala kulantay Udinese xilli dib loo dhigay caleemasaarka Juventus ee horyaalka Serie A. kuwa kale aan idin qarinaya ayaad kaga bogi doontaan barnaamijkan. ku soo dhawaada iyagoo fidsan. Kooxda Manchester United iyo Man City, Chelsea, Wolves ayaa la filayaa in waqti dheeraad ah oo fasax ah la siiyo, waliba waqti dambe bilaaban xilli ciyaareedka haddii ay gaaraan wareegyada dambe ee tartamada Yurub. Kooxdaas Premier League ayaa heli doona 30 milyan oo fasax ah ka hor inta aynan dib u bilaaban xilli ciyaareedka dambe haddii ay gaaraan finaalka tartamada Yurub. Arrintaas ayaa looga hadli doonaa kulanka 20 kooxood la qaadan doonaan maamulka Premier League ee dhici doona 6 bisha Agoosto. Haddii arrintan la isku raaco, kooxaha Man City, Chelsea iyo Wolves haddii ay gaadhaan finaalka tartamada Champions League iyo Europa League oo la ciyaari doono dhamaadka bisha Agoosto, waxa ay ciyaari doonaan horyaalka 22 Sebtembar, 10 maalin kadib markii uu horyaalka si rasmi ah u bilowdo. Inkasta oo uu horyaalka Premier League bilowday sanadkii 2019, haddana haddii uu horyaalka bilaaban lahaa bishii January, waxa ay si fudud ugu guuleysan lahayd kooxda Man United. Man United ayaan wax guuldarro la kulmin tan ilaa markii ay suuqa January la soo saxiixdeen Bruno Fernandes, iyaga oo guuldarro la'aan ah bilihii la soo dhaafay. Man United ayaa suuqa January 67 milyan oo euro ka soo bixisay xidiga Bruno Fernandes, waxaana uu xidiga reer Portugal kooxda ka dhigay koox aad u adag oo aan la loodin karin. Tan ilaa bishii January, Man United ayaa ciyaartay 14 kulan